السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب قالي ميل كستا joogtiin kusoo dhawaada channelkeeni xarunta cuntada caafimaadka walaashin shukri aadan bule asxaabta qiimaha badan ee hawada nagala soo socota soo dhawaada ini dhahaaya ayamahan waa inaga maqdaa waa ina mashquulay iska raali noqda waa adduunyo xaalkiisa oo la socotiin asxaabta qaaliga maanta waxaan galnay subscribe 10 kuna galnay dhiirgelin weyn ay tustay waxaan ummadeydii iyo dadkeygii Soomaalida wax ka faa'iideyn jiray aan ku laabto maanta waxaan ii hayaa asxaabta qaaliga ah vitamin aad iyo aad u muhiim ah markaan arkay su'aalo badan soo laabtay research weyn aan galay marka waxaan soo helay vitaminkan waxa la dhahaa maka waxa laga sameeyay vegetable sida dhinaca qudaarta ama dhirta laga sameeyay maka waa isaga border ah isaga waxa jiro kaniini ah aniga waxa haystaa isaga borderka ah maka muxuu u fiican yahay labada dhinac dumarka iyo ragaba waxyaalo badan ayuu asxaabta qaaliga u fiican yahay haddaan ku hormarno dhinaca dumarka wuxuu u fiican yahay dhinaca hormoonska oo qalqalsan ayuu saxaa haddii xaaladaada wareersan tahay ee markaas u tahay marsiisa mindhicirka ku xanuunayo waxaas dhan toos u kaaga dhigayaa haddii qofka dumarka ee raadinayso fertility-ga dhinaca caruurta ee ku yar adag tahay isagana uu wanaajiyaa oo ukunteeda ayuu kor u qaadaa haddii qofka markuu raadinayo dumarka ilmo markasta hormoonskeeda ama ukunteeda ayaa dhacsan labadaas buu u fiican yahay isaga dhinaca ragga ayaa usii guuda galaya ragga wuxuu uga wanaagsan yahay xalay biyihiisa ayuu kor u qaadaa wuxuu kale u fiican yahay dhahay ninka markuu dumarkiisa la xaajoonayo waqti dheer ayuu ku jirayaa dhinaca sariirta oo waxyaalo badan oo markasta la weydiiyo oo intaas la dhaho hadii ragga Soomaalida dhinacaas xoogo cilad ayay ku leeyihiin runtaas ku sheegno marka research badan galay kana ogaaday marka waxaan dhihi lahaa isaga borderka aad iyo aad u wanaagsan yahay vitaminka markasta markuu borderka yahay vitaminada kale xoog ayuu dhaqso jirka ayuu qofka bini'aadanka u galaa uga dhaqso badan yahay wuu ka kale waqti ayuu qaadanayaa intuu jirka galayo asxaabta qaaliga ah wuxuu kale wanaagsan yahay haddii qofka stress qabo haddaad dareemayso depression haddaa energy-gaaga loo yahay haddii buuq kugu furan yahay murqaha maxaa la dhahaa nimanka hormoonska uu fiican yahay hormoonka oo ka qalqalsan wanaajinaya haddii xitaa ninka ragga ah uu biyihiisa qalqal ku jiro ama ay daciif yihiin ama u xoog badan yihiin isagana wuu toosinayaa faa'iidooyinka maka border halkan lagu soo koobi karo haddana labada dhinac ka hadlaya ilaa 20 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo way qaadanaysaa waxyaalo badan oo soo koobay maka inta ka helayna anaga helisiin xaruntayda igu imaanaysiin waan keenay isagoo borderka haddaan maka aan gato soo loo isticmaala shaaxaga ku darsanaysa ama caanahaaga ama uujidaada qaada yar qaadadaas kala abta qaaliga qaadada yarista ee teaspoon talada taweyn maaha ayaa ku darsanaysa ama kafeegaaga ama shaahiyaaga ama caanahaaga ama waxa ku darsan kartaa mushaaridaada hal jeer waqtigii ayaa cabaysaa maaka wuxuu kale u wanaagsan yahay asxaabta qaaliga ah menopause-ga qofka markuu soo dhawaado ee qofka dumarta ee weynaato waxyaalo badan ay iska dareentaa jir ahaankeeda dhiigeeda hadduu yaani uu ka qalqalmo sida hore u soo sheegnay iyadana u fiican tahay nimanka asxaabta qaaliga dhinaca dumarka ama dhinaca raggana labadaba hadii infection qabaan uu wanaagsan yahay infection ka bixiya sariirta hamiga haduu taagay hamiga uu fiican yahay hadii uu jiro dhinaca sariirta waxyaalo ama nimanka biyaha ku soo degdega isagana uu wanaagsan yahay sida hore u sheegay waqti dheer ayuu ninka ku jiraaya oo la xaajoonaya qofka dumartiisa ah isagoo waxa aniga keenay strawberry laga sameeyo sida hore uga soo hadlayna maka waa dhir ayaa laga sameeyay waa wax dabiici ah ay weeye ma aha wax oo dhehaysid maxaa la dhahaa wax kale ama chemical xasuulay ma aha asxaabta qaaliga ah aniga ayaa qaata hadda personalka anayni la hadlayo natural aniga waxa cuno oo ayaan dadka u soo bandhigaa soo marka asxaabta qaaliga waxa dhaaf fadhiga ka kaca waxa raadinaysiin waan keenay wax waqti badan ayuu qaadatay walaasan u raadinayay alxamdulillah ilaahay la garab galay waadana waan keenay soo marka sida loo isticmaalay la hadlay waxyaaluhu leeyahay maxaa la dhahaa infectionka dhinaca sariirta maxaa la dhahaa hormoonska hadduu ninka biyaha ka qalqalsan yahay hadduu tabar la'aan meesha ku yahay hadduu energy haysanin hadduu moodkiisa xun yahay waxaasoo dhan vitaminkan ayaa ka saxayo oo lagu talagalay haddii qofka markuu weynaado oo dhinaca sariirta ku wanaagsaneen labadoodaba way niga caawinaya qaada yar in aad ku darsanaysaa maalintii dhan intaas kugu fiicnaanayso waxyaalo badan aniga ka dareemay xitaa wajiga ahaanta wajigaagu isbedelaya xoog badan la yeelanaysaa waxyaalo badan ka dareemay aniga waan qaataa
hormoneska ayuuna u fiican yahay hore saan usoo dhahay nin iyo naag buu u fiican yahay soo marka waxaa raadinayseen waaye dad badan ayaa isoo weydiinaya that's why marka halkan u keenay oo markaas igu soo celcelinay su'aashaas marka ligni weynin dadka la socda xarunteena waxaan dhahayaa na soo booqda oo walaashin Shukri Aadan Boole halkaas ayaan uga sii guda baxaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh